isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed oo ay weeliyeen dhaqaatiir ka mid ah wasaaradda caafimaadka isla markaana shafar shaqo ku maray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka ayaa dawooyin iyo agab kala duwan soo gaarsiiyay xarunta wasaaradda caafimaadka ay ku leedahay degmada Gardag sidoo kalena shaqaalaha wasaaradda u furay tababarkan oo daarana baaritaanka iyo ka hortagga cudurka coronavirus munaasabadii lagu qabanay tababarkan oo ay ka soo qayb galeen maamulka heer degmada Gardag taliyaasha ciidanka booliiska iyo asluubta shaqaalaweynaha wasaaradda caafimaadka maamulaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Gardag ayaa dhammaanba mas'uuliyiinta ka hadleen ujeedka tababarkan ayaa sidoo kale daarana maadaama ay degmada Gardag ku taalo galbeedka gobolka Sanaag sidii loo xaqiijin lahaa badqabka dadka rakaabka ee soo galay gobolka Sanaag iyadoo wasaaradda caafimaadka tiim ka socda ay degan yihiin istabta ku taalo dhinaca galbeed ee degmada Gardag isla markaana ay baarayaan dadka rakaabka ee soo galay gobolka Sanaag xaaladana aynu isugu nimi waxa weeye xanuunkan dunida oo dhan ka cabanayso ilaahay ay naga baashiye ayaynu isugu nimi oo isugu socday wuxuu inoo keenay qalab waxaana laga samaynayaa xuduud dadka lagu baarayo kantaroolka degmada Gardag baa laga samaynayaa xanuunka dee ilaahay nooma keenee adduunka oo dhan ka qaylinayo baynu doonaynaa inaynu iska magaranaysa aynu iska baarno dadka soo gelaya dhibaatana kuma jirto waana loo baahan yahay wacyigelin badan baa loo baahan yahay dadku inuu ka digtoonaado degmooyinka qaranba iyo dhimaan bulshooyinka sida ka muuqata halka waxa lagu daafurayaa sidii ma garanaysaa looga hortagi lahaa ama looga qaadan lahaa waqaayad isugu day lahaa si looga taxadir lahaa xanuunkan faafaya ee ku soo faafaya wadanka ama caalamka sida la sheegayo marka Allah inaga hayee qorshaha la wada waxa weeye waa in gobolka si xuduudiisa meelo ka mid ah inta la gaari karo la xidho oo markaa dadka isu gudbaya la baaro markaa waxaan dadka ugu baaqaynaa dhammaan dadka soo maraya kantaroolka oo kale inay u hoggaansamaan awaamiirta ee wasaaradda caafimaadka markaa uu mahadsan yahay isduuhu waxaan kale oo maxaan ku raahday ilaahay ka baryaya ummadda uu ka dhacay xanuunka ilaahay ku soo qaado inaga ilaahay noo keenin inta markaan ducada ku dhaafo waxaan dilayaa message waxa weeyaan taxadar wala taxadaro waxa weeyaan moodaleedu ku jira taxadarkii caafimaadka iyo fariimaha gudbinayeen qaata fariimaha halla farxasho marka saakalka waxaan ugu suurtagalay ilaahay mahadii inaynu sameeyno shaqaalaha tababar walakeena qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen ama ay ku eegi lahaayeen qadiyowga ay doonayaan waa loo midoobay kol laga yaabaa in mararka qaar la yiraahdo ya talooyinka la weydiinaya waxaan sida loola dagaalamayo laga yaabaa in la yiraahdo wasaaradda caafimaadka oo kale laakiin si dhammaan waa loo baahan yahay waxa kale iyadana kan uga mahad celinayaa oo maanta fursad kala ah waa madar sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Gardag.